asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. waan idin salaamay khiyaarta dhammaantiin saad u dhantihiin meel kastood kala joogtaan dunida daafaheeda. halkaad igala socotaan waa janalka ladan cabdo. fadlan dhegeysto haddii aad igu cusub tahay isku day inaad janalkan subscribe gareyso gambaleelkana oo ka dhigato si uu kuu soo gaaro muuqaal kastoo aan soo sheer gareeyo biidnillaah. haddii aad ila joogtay waad ku mahadsan tahay la joogistaada qiimeyntaada quruxda badan. soo dhawow intaasoo idil haddii aad ii sameyso waan kaaga mahad celinayaa, waadna ku mahadsan tahay boqolkiiba boqol. haddii ay ii sameynina laa mushkila. soo dhawow markasta waxaad tahay walaalahay ayaa tihiin, soo dhawaada. inta caafimaadka qabta ilaahay caafimaadkooda ha u zaaidiyo, inta xanuunsan ilaahay caafimaad sareecan oo dhiiga iyo dhuuxa gala ilaahay ha siiyo. intaan awlaada haysanin ilaahay awlaad baare ha siiyo oo waladu saalixna allah aga dhigo. inta haysatana ilaahay ha u barakeeyo oo ayagana ha aga yeelo waladu saalix. markasta waxaa loo baahan yahay awlaad iska dhal maahan oo waxaa ilaahay laga baryaa oo la dhahaa ducada ay ahayd rabbi hablii min asaalixiin, ilaahay ow saalixiintaada wax iiga hibeeyey. marka ilaahay ha inoo hadiyeeyo saalixiintiisa. inta haysatana ilaahay ayagana ha aga dhigo waladu saalix. kii aan guursanin guur xalal allaha siiyo, midka guursadana guurkiisa ilaahay ha ku xasiliyo oo ha ka siiya farxad iyo reen. soo dhawaada aamiinta waa dhankiina. waalidiinteena inta dhimata ilaahay ha u naxariisto, inta noolna ilaahay caafimaad dhiiga iyo dhuuxa gala cimri dheer oo caafimaad oo cibaado leh ilaahay ha siiyo insha allah. anagana inta noolna kuwa noolna waxay u baahan markasta naxariis. markasto haddii aad dhimatay haddii aad nooshahay labadaba raxmadda ilaahay lagama quusto. ilaahay asiga ayaaba ku leh laa taqnaduu min raxmatillaah, laa taqnaduu min raxmatillaah, marna ha ka quusanin raxmadeyda. ilaahayow rabbi ow raxmaanka ow raxmadaada kama quusaneyne. ilaahayow raxmadaada inoogu naxariiso. ilaahayow raxmadaada inagu geey jannadaada firdows al aclaa. ilaahayow raxmadaada inoogu naxariiso yaa rabbi. maalinta fasaxa uu jiro oo lakala ordaya raxmadaada nagu fadhiisiya carshigaaga hoostiisa. ilaahayow noo naxariiso adaa raxiim raxmaana yaa allah, yaa allah. ilaahow inaga yeel kuwa dhadhamiya ama laga waraabiya xawdka nabiga sallallahu calayhi wasalam. ilaahow inaga yeel maalinta aan dhimano ilaahow ka yeel maalmaha ugu khayrka badan. kelimadeena ugu dambeysana ka yeel towxiidkaaga laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah. intaasoo dhan ilaahay wuu inoo sameyn karaa, waayo ilaahay waa casiizu raxmaan, waa raxiimu raxmaan, waa qafuuru shakuur. ilaahay wax kasta wuu awoodaa, ilaahay wax kasta wuu awoodaa. insha allah ilaahay ha inaga aqbalo ducadeena. idinkana aamiinta waa dhankiina oo ha ka baqin walaalaha kale si ayagana ducadan aga qayb qaataan oo ayagana aamiin ay u dhahaan. waxaa laga yaabaa inuu ilaahay u aqbalo oo maalinta ugu dambeyso kelimadooda uu ka yeelo towxiidka laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah. waayo waxaa liibaanay ninka ay noqoto kelimadiisa ugu dambeyso towxiidka oo man kaana aakhiru lkalaamu laa ilaaha ila allah dakhala aljanna ayuu dhahay xadiiska nabiga sala allahu calayhi wasalam. ilaahay naga yeela markaas insha allah. waxaan rabaa laba qiso maanta inaan idinka sheekeeyo. labadaas qiso aan jeclaystay inaan idinla soo wadaago, idinkana la wadaago walaalihiina. ha ka baqiilina. qisadeena sideetan iyo ku bilaabanaysaa. ka raali ahaadana haddii uu dheeraaday hadalkayga iyo hordhacayga, waayo waxaan jeclaystay inaan idin duceeyo anigana aan duceysto. waxaa laga yaabaa waa in uu malaa'igaha ay noogu darsamaan aamiinteena oo ilaahay inaga aqbalo dhammaanteena. sidaan adduunka aan maxaa la dhahayay aan meeshaan ugu midowno social mediaha aan idinka bartay, idinkana aad iga barteen inuu ilaahay jannadiisana inagu kulmiyo. marka ha dhabsanina halaha hordhacayga ah. kusoo dhawaada muuqaalkeena ama qisadooyinkeena. qisadan waxaa wata wiilka ayaa wuxuu ku bilaabayaa, wuxuu dhahay waxaan ahaa nin yacni istiqfaar badan. markasto wadada haddaan maraayo haddii aan guriga joogo wuxuu dhahay markasto aniga wuxuu dhahay tasbiixda afkayga kama bixiyo oo markasto waxaan dhahaa astaqfirullah alcadiim, astaqfirullah alcadiim, astaqfirullah alcadiim, astaqfirullahna waa dhihi kartaa keligeeda, astaqfirullah alcadiimna waa dhihi kartaa. waa un ziyaado adiga aad ziyaadsatay. wuxuu dhahay waxaan dhahaa markasta astaqfirullah saliga nabiga. wuxuu dhahay allahuma salli wasalim calaa nabiyina maxamed. ama waxaad dhihi kartaa haddii aad rabto inaad gaabsato allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed. waa midka ugu gaaban oo la ogol yahay, wax intaa ka yar lama ogolo. waayo allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed ama allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahima wacalaa aali ibraahima innaka xamiidun majiid. waa sida ibraahimiyada
waad badsan kartaa, way badanta waad aqrisan kartaa. haddii uu yacni kan kuu fudud yahay allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed maalintii ugu yaraan nabigaaga ku salli sala allahu calayhi wasalam shanta waqti oo aad tukanayso min 100 waa 500 way kugu filan tahay insha allah. ku dadaala salliga nabiga sallallahu calayhi wasalam. ninkan wuxuu dhahay wadada ayaan marayay oo waxaan u socday gurigayga ayaan kasoo baxay ayuu dhahay, waxaan u socday goobteyda shaqo, wadada ayaan socday. wuxuu dhahay aniga sidaan wadada u socday marna tasbiixda afkeyga kama bixinaynin oo waxaan aqrisanayay astaqfirullah astaqfirullah iyo salliga nabiga. waxaan arkay ayuu dhahay 3 nin oo wadada dhexdeeda taagan oo 3da qofba ay haystaan seef aad u yacni u hilaacayso oo waa kuwo yacni burcad ama tuugo. wuxuu dhahay waan naxay ayuu dhahay waan qalqalay waayo meel aan ka laabtay ma taagna, wadada kala bartameeda ayaan taaganahay, awood kale ma lihi aan iskaga celiyo, gacan qabsi ma haysto, waa 3 nin, 3da ninna seef ayay haystaan, waxaan sameeyey ma aqaan. wuxuu dhahay waan naxay markii hore laakiin markii dambe ilaahay ayaan tala saartay, tasbiixdeyda iyo salliga nabiga ayaan afka kusii haystay oo waan iska sii socduu dhahay. ilaahay amarkiis wuxuu dhahay agtooda ayaan maray, hal qof oo isoo fiiriyey ma lahu dhahay, salliga nabiga ayaan waday, tasbiixda ayaan waday, saan u socday goobteyda ayaan tagay, albaabkeyga ayaan galay, shaqada waan iska furay waana gala ayuu dhahay. wax kaloo i taabtay ama wax kaloo ila hadlay ama nimankii xataa ima aysan soo fiirinin, waxaana sabab ii noqday ama ii hiiliyey dikriga ilaahay afka aan ku hayay bifadlillaah, salliga nabiga iyo istiqfaarta aan afka ku hayay ayaa ilaahay iigu naxariistay oo iiga celiyey cadowgeyga. waayo nin ilaahay magan galay marna cadow ma soo hajuumo, waayo ilaahay subxaana watacaala istiqfaarta iyo salliga nabiga istiqfaarta waxaa waaye waa wax kasto ayay u tahay furo, ilaahay ayaana ka leexiyey dhagartooda, ilaahayna wuu ugu naxariisanaa, dambi dhaafna wuu ka helayaa, cadowgiina ilaahay wuu aga qabtay. qisada labaad aan guda galno. gabar ayay ahayd, waxay tiraahday gabadhan waxaan ahaa qof yacni waxay tiraahday waan guursaday oo qof reer leh ayaan noqday. waxay dhahday muddo 15 sano reer ma yacni ilmo maan dhalin oo dhaqtarba dhaqtar ayaan tagaa, dhaqtarba dhaqtar ayaan tagaa. waxay tiraahday wax aa qabto malaha ayaa la leeyahay. dhaqtaradii u dambeysay oo u tagay waxay ugu dhahday wax aa qabto oo xilada ma jirto, laakiin tasbiixda u laabo oo ilaahigaaga u laabo oo naxariis yacni dambi dhaaf weydiiso, waxaa laga yaabaa inuu ilaahay kugu naxariisto oo owlaad uu kugu siiyo, waayo tasbiixda haddaad badiso ilaahay wax kasta oo aad rabto adduunyadaada waa lagaaga kaafinaya, aakhirana waa lagugu dambi dhaafaya. waxay tiraahday gabadhii tasbiixda ayaan bilaabay, waxay dhahday kala joogsi malahan haddii aan socdo haddii aan fadhiisto ilaa aan hurdaay mooye aman suu musqusha aan ku jiro. waxay dhahday astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah, waxay dhahday joogsi malahan. waxay dhahday waxaan helay uur degdeg ayaan qaaday oo waxaan dhalay gabar 9 bilood kadib, alxamdulilah. isla sidii istiqfaarta maana joojinin. waxay dhahday uur kaloo labaad ayaan qaaday, isla 9 bilood kadib wuxuu ilaahay siiyey gabar kale oo caafimaad qabto lixaadkeeda dhammaystiran yahay, alxamdulilah. maana joojinay dhahday waayo muddo 15 sano maan dhalnay dhahday, ilmaha waxaan u qabaa oon fara badan ayaan u qabaa. waxay tiraahday alxamdulilah istiqfaarteeda maan joojin waayo meesha waxaaba iiga dhalatay wado istiqfaarta, waxaaban ku helay owlaad, inaan joojiyo maba rababo, inay sii ziyaadiinta aqrin jirin in ka badan mooye. waxay tiraahday waxaan sii waday istiqfaarta alxamdulilah, haddana waxaan qaaday uur kale 3aad, waxaan ku dhalay wiil, haddana maan joojin, isla sidii uur kale oo 4aad ayaan qaaday tiraahday oo waxaan dhalay wiil kale, alxamdulilah. waxaan haystaa 2 wiil iyo 2 gabdhood. aniga oo sidii joojin oo iska wado ayaa waxaan arkay gabar oo ayadana intaasoo sano la qabay oona owlaad aan haysanin oo owlaad raadinayso. markaas ayaa waxaan ku dhahay abaayo aniga muddo 15 sano maanan dhalin, laakiin alxamdulilah bifadlillaah thumma alxamdulilah waxaan ku dhalay istiqfaarta ayaan badsaday anigoo 15 sano aan dhalin oo hadda 4 cunug haysta ka waranay dhahday, alxamdulilah. waxaana ii sababtay istiqfaarta, ilaahayna wuu igu caawiyey oo yacni noqoshadan u noqday darteeda owlaad ayaan ku helay. adigana istiqfaarta bilow oo ilaahaygaaga u laabo. waxay dhahday gabadhii taladeeda ayay qaadatay, istiqfaartii ayay bilowday. istiqfaartii siday u waday waxaan arkay dhahday muddo adiga bishii 9 bilood kadib bay dhahday, adiga bilooyin kadib ayaan arkay gabadhii waaba iyadoo xaamile ah oo uur leh. wallahi waxay dhahday waan ku farxay waayo
alxamdulilah taladii meeshay ku qaadatay dambi dhaafna way ka heshay oo naxariisna ilaahay way ku siiyey oo owlaad ayay caloosheeda maanta ugu jirtaa. waan farxa ayay dhahday alxamdulilah, anigana owlaadeeda ilaahay ha ii barakeeyo, ayadana ilaahay ha siiyo mid ay ku faraxda oy dhabta saarata ilaahay aga dhigo owlaada. marka meeshaan waxaa inooga cad muhiimada istiqfaarta ay leedahay. haddii aad yacni wado kasto cariiri hadday kugu noqoto, haddii aad yacni deeqa dareento, haddii aad murugo fara badan dareento, haddii irsaqa uu kugu yaryahay, haddii yacni maxaa la dhahayay owlaad la-aan ay ku hayso, haddii arrin family problem uu ku haysto, waxaasoo dhan waxaa xal u ah inaad aqrisato tasbiixda astikfaarta. waa inaad badisaa faqultu istakfiruu rabbakum inahu kaana qafaara. marka waa inaad aqrisataa tasbiixda. muhiim waayo tasbiixda, waayo noloshaada wax weyn ayay ka bedelaysaa. aniga kula hadlaayo wallaahi istiqfaarta faa'iidada aan ka helay wax la koobi kara maahan. haddii aan aqrisanin maanta, haddii hal mar hataa aan aqrisano astaqfirullah aanan dhihin, ama one day haddii aan astaqfirullah aan istiqfaarsan waayo, wallaahi been idima sheegayo waxaan dareemaa cariiri aan weligay dareemin aan dareema. waayo waxaan noqonaya anoo dhanbo ilmihii aan ku kacaya, waa xanaaqaya, yacni wax kasto waxay ila noqonayaan cariiri ila noqonayaan. laakiin markaan tasbiixda bilaabo irsaqa wuu ii waasacmaya, farxad ayaan dareemaya, wax kasta waxaan u malaynaya fudeed inay ii yihiin. alxamdulilah. idinkana ilaahay ha idin fududeeyo tasbiixda, anigana ilaahay ha ii fududeeyo sidaan anigaba ducada idinku soo gudbiyey, idinkana iigu soo duceeyo insha allah. balanteena waa inaan faafinaa kheyrka, idinkana garab igu siiya, anigana waan jeclahay inaan faafiyo. waayo dadka ilaahay dartiisa isku jeclaado ama kheyrka ku midoobo. ilaahay 7 qof oo hargalayso harkiisa maalinta fasaxa uu jiro waxaa ka mid ah 2 qof oo ilaahay dartiisa isku jeclaato, ama qof wax sadaqeeya oo gacantiisa gacanta kale aysan ogeyn, ama imaam caadil ah, ama qof intay naag yacni isku soo qurxisay, ama naag nin isku soo qurxiyay yacni ka zinaysata u imaatay oo dhah innii aqaafu allaha rabbalcaalamiin, iyo shaabun nasha'a fii cibaadatillah, yacni adoon ku hanuunsan 20 jir ku hanuunsan masaajidka yacni kuna noqonayo cibaadadiisa. ilaahay 7daas qof maxaa la dhahayay ayuu harkiisa hargeliyaa, oo yacni maalinta fasaxa uu jiro oo raxda la isku keenayo maskaxda, oo yacni hataa ay leeyihiin nabiyadii allahuma sallim wasallim ilaahayow yacni nabadbaadi ilaa shafeecada nabi maxamed mooye qof kale. xataa nabi maxamed markii uu shafeecada inoo raadinayo yacni ma dhahayo ilaahayow adiga ay dhahday wala sawfa yucdiika rabbuka fatardaa, dib dambe ayaan kaa raaligelin doonaa, adiga ayaa igu dhahday, adiga ayaa ii ballan qaaday. yacni amar taagleen lama imaanayo meesha, oo wuxuu la tagayaa yacni sujuud ayuu la dhacaya. markaasaa la leeyahay way ku ahaatay istaag, hadda dalba waxaad rabtid. markaas wax kale ma dhaha ilaahayow addoomadeeda ii kala xugmi, yacni addoomadeeda iigu kala garqaad bes. marka ilaahay ha inaga dhigo kuwii isku baraarujiya kheyrka, oo isku garabsiyo, oo isku caawiyo insha allah. naftayda iyo naftaadaba ilaahay ha ku hanuuniyo kheyrka insha allah. waxaan idinka tegayaa muuqaalkan iyo muuqaal kalo qiimihiisa wata. markasta waxaan jeclahay kheyrka inaan soo gudbiyo, adigna walaashay ama walaalkay igu caawi, waayo inaad iga faa'iida mooye janalkayga kuma qasaaraysid. anigana waan ku farxayaa, waxaan dareemayaa inaan haysto walaalo kheyrka ila jecel oo ila faafiya. markasta muuqaalkayga aan ka arko laygta waa muhiim, waayo waxay iga caawinaysaa inuu muuqaalkan dad badan gaaro insha allah. intaasoo dhan waa codsi maahan wax yacni xoog iyo amar taagleen, ama yacni inaan idinku cadaadinayo. haddii aad doonto waad ii samayn kartaa, haddii aad ka helinna waad iska tegi doontaa. kolley muuqaalka wuu ku cajab gelin doonaa, waayo meesha kheyrka ayaa halkan waxaan kusoo gudbiyaa kheyr. kolley kheyrka waad ila faafin doontaa, xumaantaba waa la faafiyaa oo dadka way faafiyaan. waxaa jirnaagama socda ilaa i dambi mooye. adigana isku day inaad kheyrka garab igu siiso, oo walaalka ama walaashaa dhibaataysan ay dhegeysato, ay istiqfaarta bilowda insha allah. waxaan idinka tegayaa kulan dambe oo lamid ah, iyo istiqfaar ama xawqalada ama tasbiixda ama saliga nebiga insha allah, anagoo isku baraarujinayno iyo cibaadaadka kale anagoo isku baraarujinayno insha allah ayaan isku soo laaban doonaa biidnillah. waxaan idinka tegayaa tani kulanka dambe. wabilaahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.